maanta dunidan aynu ku nool nahay dagaaladu kaliya kama dhacaan goobaha colaadaha iyo fagaaraha dagaalka balse waxay sidoo kale ka dhacaan dagaaladu fagaaraha xogta iyo sirta dal kastoo adduunka ku nool oo awood leh waxa uu leeyahay asirdoon oo indho iyo dhagabo ah dawladdiisa iyo dalkiisa mawduucan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa hay'adda sirdoonka ee Pakistan ee loo yaqaano ISI su'aasha ugu horeysa ee mawduucan ku ibafiri doona waxa weeye waa maxay ISI Inter-Service Intelligence waa hay'adda ugu weyn sirdoonka Pakistan waxay u shaqeysaa si ay u ilaaliso amniga qaranka si ay u ururiso xog sir ah gudaha iyo dibadda waddankaba si ay uga hortagto khataraha argagixisada si ay ula socoto dhaqdhaqaaqyada dalalka cadawga loo arko waxay la mid tahay sida MI6 Ingiriiska CIA-da Mareykanka iyo Mossad Israel goorma la aasaasay hay'adda ISI ee Pakistan ISI waxa la aasaasay sanadii 1948 wax yar kadib markii Pakistan ay noqotay dal madax bannaan sababta loo aasaasay waxa ahayd Pakistan waxay la dagaalameysay cadawgeega soo jireenka ah ee sii jiray Hindiya dawladdu waxay u baahatay hay'ad midaysa xogta sirdoon ee ciidanka su'aasha ugu muhiimsan ee mawduucan waxa weeye yaa maamula hay'adda ISI waxay hoos timaadaa ciidamada Pakistan ee awoodda leh badanaa Pakistan ciidamadeedu waa kuwa awoodda u badan dalka gacanta ku haya sidoo kale waxa hogaamiyay hay'addan ISI generaal sare oo ka tirsan ciidamada Pakistan ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa si rasmi ah u kormeera laakiin ciidamada ayaa saameyn weyn ku leh tan waxay ka dhigaysaa ISI mid aad ugu dhow awood military shaqooyinka ugu waaweyn ay qabato ISI waxa weeye sirdoonka dibadda la socoshada dalalka dariska sida Hindiya Afghanistan iyo Iran inay ogaato wax la dhaqaaqyada ku soo socda ee dalalkaasi ka soo socda ayay tahay shaqadeeda ugu weyn qodobka labaad ee loo aasaasay ama shaqada ugu weyn haysa waxa weeye fahamka qorshayaasha siyaasadeed iyo militariga cadawga ugu weyn waa Hindiya waxay kale ka shaqeysaa sirdoonka gudaha dabagalka kooxaha argagixisada ee ka howlgala waddanka Pakistan ee ugu horeyso Taalibaanta Pakistan ka hortagga afgambiyo ama khatar gudaha ka dhaca qodobka saddexaad ay u taagan tahay ka shaqeysa waxa weeye la dagaalanka waxa loo yaqaan terrorism-ka argagixisada ISI waxay door weyn ka ciyaartay dagaaladii Afghanistan la dagaalanka kooxaha xag jirka imtixaaniinta ah qodobka afraad iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka shaqeysaa u xil saarantahay waxa weeye saameynta siyaasadda gobolka waxa lagu eedeeyaa marar badan inay faragelin ku sameysay Afghanistan Kashmir iyo arrimaha gudaha ee Pakistan sababta ISI caan u tahay amba ay mar badan dhalisay waxa weeye ISI waa hay'ad aad u awood badan si qarsoodi u shaqeysa ku lug leh dagaalo badan oo aan toos loo arkin waxa lagu yaqaan howlgallo qarsoodiya xiriir la leh koox xubeysan xilliyada kala duwan door ka ciyaartay dagaalkii Soviyetka iyo Afghanistan taasi waxay ka dhigaysaa mid mararka qaar la amaano mararka qaar lagu eedeeyo faragelin siyaasadeed sidee bay u shaqeysaa guud ahaan sida hay'adaha sirdoon oo kale ISI waxay isticmaashaa dad xogta soo ururiya falanqeeyaal xogta falanqeeya tiknoolajiyada casriga la shaqeynta hay'adaha kala sirdoonka dunida ugu dambeyntii ISI ma aha kaliya hay'ad xog ururisa ee waa ciidamada qarsoon ee Pakistan waxay ku shaqeystaa hooska laakiin saameynteedu waxa laga dareemaa siyaasadda amniga iyo dagaalada gobolka waa hay'ad awood badan sir badan isla markaana ka mid ah hay'adaha ugu awoodda badan isla markaana mid aan si buuxda loo garanaynin waxay dhab ahaan qabato taas ayaana ka dhigaysa mid cabsi iyo xiiso labadaba leh waxaan lagu tiriyaa hay'adda ugu horxilista badan caalamka intayna mawduucan mid lamada ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabaday salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh